Suldaan Mubaarak Cali Xirso oo kamid ah salaadiinta gobolka Karkaar ayaa soo dhaweyntan oo si heersare loo soo agaasimay waxa loogu sameeyay deegaanka Yaka ee degmada Qardho. Waxa soo dhaweynta Suldaan Mubaarak ka qayb galay ugaas Jamaal ugaas Cabdi, odayaasha, dhalinyarada, haweenka iyo ardayda deegaanka Yaka. Suldaanka oo soo gaaray madasha lagu soo dhaweeyay waxa uu salaan la dhex qaaday dadkii kala duwanaa ay soo dhaweeyay. Intaas kadib waxa Suldaan Mubaarak Cali Xirso iyo mas'uuliyiinta waxbarashada oo ugu horeeyay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar Bashiir Axmed Gaaleeri iyo kormeeraha waxbarashada gobolka Mahad Yuusuf Gaceete ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay dhismaha dugsigan hoose ee uu yeelanayo deegaanka Yaka, kaas oo dhaqaalaha dhismaha ku baxaya uu ku deeqay Suldaan Mubaarak Cali Xirso iyadoo dhulka laga dhisayna uu bixiyay ugaas Jamaal ugaas Cabdi. Dugsigan cusub ee maanta sida rasmiga loo dhagax dhigay ayaa looga bixi doonaa ciriiri ardaydu ka haysatay dhismaha dugsigii hore. Gudoomiye ku-xigeenka deegaanka Yaka Mustafa Yaasiin ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha in maanta laga dhagax dhigo ardayda wax ku baranaysay iskoolka Xaali Jaamac, in loo dhagax dhigo iskool hoose dhexe oo wax ku bartaanin iyagoo awal meesha ku baranaya ay ahayd iskool guri kira ah. aad baan ugu faraxsanahay, aad baan raali ka nahay u soo dhaweynaynaa dugsiga hoose dhexe ee Xaaji Jaamac. aad baan ugu hambalyeeynaa maamulka iyaga aadka u san aadkana u qiimo badan aadkana noogu dhagan nuglaaday inay nagala soo qayb galaan xafladan qiimiga badan. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa suldaanka aadka u qiimo badan, ilaahay ha barakeeyo, Suldaan Mubaarak Cali Xirso oo ballan qaaday inuu iskuulka u dhagax dhigi doono ardayda aadka u qiimo badan ee Soomaaliyeed ee halkan wax ku baranaysa. ilaahay waxaan ka rajaynayaa miisaanka qiyaamaha inuu u saaro insha Allah. iskuulkani waa dhaqaaqay damo iskoolka ku dhigan jirnay annaga iskoolka lacag kiraana laga qaadi jiray annagoo naloo dhagax dhigayo iskoolka. ilaahay ajarkeeda inta ku tacab gashay iyo ajarkooda iyo abaalkooda maalinta qiyaamo miisaanka Allah ugu buuxiyo. ugaas Jamaal ugaas Cabdi ayaa dhismaha iskuulkan ku tilmaamay inay tahay mid guul u ah dadweynaha deegaanka Yaka. arrintan waxaan ku soo dhaweynaynaa suldaankan ku soo dhaweynaynaa maadaama uu safar inoo ku yimi hawshatan guddoonka waxbarashadii gobolkii ay nala joogaan Bashiir Gaaleeri iyo Bashiir Axmed. Suldaan Mubaarak Cali Xirso isna madasha hadal ka jeediyay ayaa ka hadlay waxa ku dhaliyay in mas'uuliyadda dhismaha iskuulkan uu isaga qaado. run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay imaanshaha halkan. sababahan u imidna ay tahay hadda ka hor oo aan imid Yaka inaan arkay iskuulka ay caruurtu wax ku dhigato oo dugsi hoose dhexe ah oo runtii aad iyo aad u yar, caruuro badan oo tiro badan aanay awoodin in galaasyadii ay buuxiyaan. kuwa hadda ku jiraana galaasyada ay tiro badan yihiin oo ay galaas walba ay ku jiraan caruur aad u tiro badan. gurigaas oo ah guri kira. gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar Bashiir Axmed Gaaleeri ayaa bogaadiyay dadka deegaankan ee isku tashiga ku dhisay iskuulka, iyadoo dhanka kale uu xusay in wasaaradda waxbarashada ay taageero ka geysanayso dhismahan. xafladatan barakaysan runtii oo ah xaflad lagu dhagax dhigayo dugsi hoose dhexe ee tuulada Yaka. sida aad maqlayseen oo uu sheegay suldaanku, ardadani waa nambar badan waxayna wax ku dhigataa guri kira ah oo loo dhisan gareeyay in ay reer deegaaniin oo ciriiri ah. marka ardadu waxay kala kulmeen culays dugsigan maanta la dhagax dhigayo dhismihiisa. annaga wasaarad ahaan insha Allah bismillaahi kariim waxaan ku noqonaynaa wasaaradda dhexe. waxaan rajaynaynaa in aanu contribution ka geysano oo aanu qolalka inta annaga insha Allah qadar mustadac gobolka ku soo biiro oo gobolku helo qismo uu helo. mas'uuliyiinta ka socda wasaaradda waxbarashada ayaa agab waxbarasho oo ay ugu talagaleen dugsiga waxay ku wareejiyeen maamulka iyo ardada, waxaana si rasmi ah u gudoonsiiyay gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardho Cabdullaahi Cali Faande iyo kormeeraha waxbarashada gobolka Mahad Yuusuf Gaceete. Xibaladan Cabdi, wararka warbaahinta SBC magaalada